kubadda cagta casriga ayaa saldhig u noqotay cunsuriyad, mana jirto garab istaag loo sameeyay dhammaan xidigahaasi la kulmay cunsuriyadda, bal waaba lagu sii maadaystay. Horyaalka England waa mid ka mid ah horyaalada ugu cunsuriyadda badan xilligan, waxaana uu rikoorka cunsuriyadda kala wareegay horyaalada Jarmalka, Faransiiska, si la mid ah Talyaaniga oo ahaa sanadihii ugu dambeeyay horyaalada laga buuxiyay cunsuriyad mar walbana ay ka dhacaan falalkaasi. Dadweynaha reer Yurub ma dhaleeceeyaan xidigaha caddaanka ah in ka badan shakhsiyaadka caadiga ah, balse marka uusan noqon sida ay doonayaan xidig Afrikaan ah, waxaa sahlan dhaleecayn, xaqirid iyo cunsuriyad aad u baahsan, waana mid dhacday. Waxaynu warbixintan ku eegi doonaa sababta loo cunsuriyeeyay wiilka madow ee ku guuleystay koobkii adduunka isagoo matalaya Faransiiska ee Paul Pogba, iyo jawaabtii qalbiga ruuxiisa uu kaga jawaab celiyay caaqilka madow laguna tilmaamo dheemanka kooxda shayaadiinta cascas. Inta aanan muuqaalka guda gelin, fadlan haddii channelkan uu kugu cusub yahay subscribe saar, riix gambaleelka digniinta si durbaba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan bartan soo gelino. Like nagu dhiirigeli, fikradaadana inoogu reeb qaybta commentiga, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. xidiga qadka dhexe ee kooxda Manchester United, ninka qaaliga ah isagu waa Paul Pogba oo lagula kacay fal cunsuriyeynimo ah kadib rigooradii uu ka qasaariyay kooxda United intii lagu jiray ciyaartii u dhaxaysay Red Devils iyo kooxda Wolverhampton Wanderers. Kooxaha Wolves iyo Manchester United ayaa ku kala baxay barbardhac gool iyo gool ah kulankoodii labaad ay ku wada ciyaareen horyaalka Premier League dalka Ingiriiska xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020. Red Devils ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kadib markii uu gool u dhaliyay Anthony Martial, ninka reer Faransa, ka hor inta uusan ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Wolves ee Ruben Neves uusan ka soo barbaraynin qaybtii labaad ee ciyaarta, weliba gool saaruuq ah oo aan inaba caadi ahayn. Taasi ma noqonin wax keenay dhaleeceynta Paul Pogba, balse sheekada ayaa iska sii socotay. Goolayaha reer Portugal Rui Patricio, kaasoo ku guuleystay Euro 2016 iyo koobkii ugu dambeeyay UEFA Nations League dhanka qaramada oo goolka u hayay kooxda Wolves, waxa uu awooday inuu ka hor istaago xidig reer Faransa ee Paul Pogba inuu gool ka dhaliyo kadib rigooro loo dhigay inta ay ciyaartu socotay, weliba qaybihii dambe. Kulanka kadib Paul Pogba ayaa ka helay baraha bulshada ay ku xiriirto ereyo badan oo tilmaamaya isirnacaybka dadka madow iyo weliba cunsuriyad kadib rigooradii uu ka qasaariyay Red Devils, isla markaana uu ka hor istaagay 3 dhibcood inay ka qaataan kooxda magaceeda loo soo gaabiyo Wolves. Ma ahan markii ugu horeysay oo ay ka dhacdo gudaha dalka Ingiriiska fal cunsuriyad ah bilowga xilli ciyaareedkan, iyadoo la xasuusto in weeraryahanka kooxda Chelsea ee Tammy Abraham ay qabsatay xaaladan oo kale kadib markii uu Blues ka qasaariyay rigooro kulankii ay Liverpool ku wada ciyaareen finalka UEFA Super Cup ee sanadda 2019, taasoo sababtay in naadiga reer London ay ku guuldareysatay hanashada koobkaasi. Kadib falkaasi cunsuriyadda ah ee lagula kacay Paul Pogba rigooradii uu ka qasaariyay kooxdiisa, Manchester United ayaa bayaan ka soo saartay falkaasi cunsuriyeynimo ee lagula kacay xidigooda ugu wanaagsan, waxaana iyaguna ay ka hadleen arrinta, weliba si ay ku jirto jacaylka xidigooda, iyagoo leh qof walba oo jooga Manchester United waxa uu ka yaqiiqsaday falalka cunsuriyeynimada ah ee lagula kacay Paul Pogba, waxaana falkaasi u cambaareynayna sida ugu xooggan ayaa lagu bilaabay bayaan ka soo baxay kooxda kubadda cagta Manchester United. Shakhsiyaadka ku kacay falkan ma ahan kuwa matala qiimaha kooxdan weyn, waxaana dhiirigelin leh inta badan taageerayaasheena ay arrintan ku cambaareeyeen baraha bulshada. Manchester United wax dulqaada uma hayso cunsuriyadda, bal waxa aynu weli wadnaa ololaheena aan uga soo horjeedno cunsuriyadda. Waxaan si wada jira uga shaqayn doonaa inaan tilmaamno shakhsiyaadka falkani ka dambeeya. Waxaan ka qaadi doonaa tallaabada ugu adag ee noo bannaan. Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa shirkadaha baraha bulshada in iyaguna ay tallaabo ka qaadaan shakhsiyaadkaasi. Kadib hadalkan ay soo gudbisay Manchester United, isla markaana lagu taageerayay Paul Pogba iyo ka soo horjeeditaanka falka cunsuriyadda ah, waxaa dunida oo dhan ay wada sugaysay sida uu uga jawaabi doono Paul, waxaana joogdheeraha ku guuleystay koobkii adduunka 2018 ee Pogba uu fariin ku karbaashay taageerayaasha Manchester United ee cunsuriyadda isaga kula kacay
waxaana uu soo jiitay quluubta dadyowga reer Afrika. Dunidu way qurux badan tahay. Marka aan ka hadlo wax ku saabsan cunsuriyadda, waxaan ku fikirayaa inay taasi tahay jaahilnimo. Anigu midaasi waan ka murugooday, balse kama aanan xanaaqin. Aniga ahaan nafsadeyda waan ku faraxsanahay. Waxaan leeyahay saaxiibo ka soo jeeda waddanka Jaynaha. Wakiilkaygu waxa uu ahaaday Talyaani, qareenkaygu waxa uu ka soo jeedaa Brazil, xaaskayguna waxay ahaatay Bolivian. Waxaan ahay wiil Faransiis ah oo Gani ka soo jeeda. Noloshayda oo dhan waxay ahaatay dhaqamo kala duwan. Anigu hadda waan ku faraxsanahay noloshayda. Waxaan ku raaxaystaa kubadda cagta. Waxaan sidoo kale ku raaxaystaa inaan dadka u dhoola-cadeeyo. Dabcan midaasi ayaa ah waxa aan doonayo inta aan noolahay. Ha ku fikirin wax ku saabsan dadka ku nacab, maxaa yeelay waxa ay doonayaan inay dib ku celiyaan. Si kastaba ha ahaatee, Pogba fariintiisa waa mid ruuxday qalbiga dhammaan ushaaqda kubadda cagta, si gaar ah dadyowga reer Afrika ee isagu uu asal ahaan matalo dhanka midabka. Isaga oo muujiyay sida aysan waxba uga gelin falka jaahilnimada ah ee lagula kacay, kaasi oo ah cunsuriyadda iyo midabta korka aan geed loogu soo gamban. Dunida kubadda cagta ayaa la daalaa-dhacaysa falkan cunsuriyadda ah. Inkastoo inta ugu badan la sheego inay muhiim u tahay kubadda cagta haatan in dhaqamadaasi cunsuriyadda ah la bedelo, balse ma aysan dhicin. Dhammaan xidigaha ka soo kala jeeda qaaradaha Latin America, Aasiya iyo Afrika ayaa la kulmay inta ugu badan cunsuriyadda, waxaana xidigaha la kulmay ka mid ah inkastoo ay aad u badan yihiin Roberto Carlos, Dani Alves, Kalidou Koulibaly, Super Mario Balotelli, Min-son iyo magacyo kale. Badi xidigahan ayaa ooyin uga baxay garoonka kadib markii la cunsuriyeeyay. Pogba waxaa cunsuriyad kula kacay taageerayaasha kooxda uu ka tirsan yahay ee Manchester United, waxaana uu ka mid yahay xidigaha loogu jecel yahay kooxdaasi marka loo eego hannaankii qaab ciyaareedka, walow ay kooxda United maamulkeeda diideen in ninkan madow ay u ogolaadaan dalabkiisii ahaa inuu ku biiro kooxda Real Madrid oo u arko inay tahay mid ka mid ah riyooyinkiisa kubadda cagta. Paul kuma faraxsana sii joogista kooxda Manchester United iminka. Shayaadiinta cascasna uma ogola inay xidigan ka fasaxaan kooxdooda si uu ugu biiro Real Madrid oo xaaladiisa kor kala socota. Lama qiyaasi kara halka uu saldhigan doono Paul Pogba. Haddaba anigu maxaan ka leeyahay cunsuriyadda? Cunsuriyadda waa waxa ugu weyn ee burburiyo kubadda cagta kana qaada farxadda, waana jaahilnimada ugu weyn ee uu isticmaalo qof kubadda cagta ku lugta leh. Magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiino. aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.